Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Maanta casharkeena waxaan ku soo qaadan doonaa project aan doonayno inaan ka diyaarino barnaamijkan loo yaqaano Filmora 9 oo aan doonayno in aan bilow ilaa dhammaad aan kusoo koobno hadduu Eebbaha awoodda la oggolaado haddii waqti uu noo saabaxo. Marka waqti badan ma qaadanayno. Okay, waan gudagalaynaa lesson-koona maanta. Okay, meeshan waxaa noo yaala cod, halkan waxaa noo yaala muuqaal, halkan muuqaal kale ayaa noo yaala. Marka waxaan doonaynaa inaan markasta bilowno muuqaalka iyo video isku si baa loo keeni karaa. Markaad doonayso inaad soo qaadatid waxaa leedahay isla qabanaysaa computerkaaga control iyo I oo ah import soo gasho. Halkan muuqaalo yaalo geeyay hadduu cod kaliya yahay sidoo kale tay la mid tahay. Deetana markaad aragtid wad midkaad dooratid ayaa okay open ku soo leedahay kadibna wuxuu ku soo galayaa platformkii dhexdiisa ka isticmaalaysay. Marka codka noo soo qaad asaga ugu hooseeya qaybta hoose ayuu leeyahay. Codkii waan soo dhiganay. Okay, codka dan dooran inaan iska jarno asagoo noogu dooran ayaa maqaskan yaroo calaamadan ka dhexdiisa ku sawiran baan ku dhufan karnaa ama kaa koraan ku dhufan karnaa. Waa isla meeshii kan hoose haddaan ku dhufano laba qayb baa laga dhigay. Marka tanaan drag ku siinaynaa saan u doorano kadibna waa iska delete computerkan ayaan taabanay. Haddaan doonan inaan qaybta dambe ka jarno waxaan sameynaynaa meeshaan ka jarayno ayaan tegaynaa waana dooranaynaa kadibna waxaan leenahay calaamadeeda ay wadato ayaan click siinaynaa kadibna waxaan dooranaynaa kaa dambe anoo drag ku siinayna muuska kadibna waa tiraynaa. Intaas ayaa noo soo hadhay. aan aragna marka dhageysano intaan. Okay, beesta Cumar Dhuhle ayay markaa noo soo gashay halkaan. Marka haddaan doonayno inaan gaabino codka halkaan aan ka gaabinana xarigan hoos u jiidanaa. Haddaan doonayno inaan dheerina waa korba u dhigaynaa. Marka hoos noogu dhigsay u gaabato ma la maqlayaa. Okay, waa wax yar oo hoos ka hadlaya noqotay. Okay, taas wuxuu ahaa maqalkii sidaan u samaysanay muuqaalkii inaan ka soo daba dhigano maadaama project uu yahay muuqaalka ayaan soo qaadanay halkaan muuqaal soo dhiganay. Okay, muuqaalku markuu labadan door ku siiyo midka rabta ku dhufan kadhaa laakiin anigu kan weyn baan ku dooranayaan si uu nadiif ugu noqdo oo shucaac iyo ciire iga gelin. Okay, shaashadan halkaas ka muuqanaya dhanka xagee waa kan halkaan ka muuqanaya. Marka waxyaalahan u baahnay waa iska jarayaa. Intaan u baahnayn waa iska goynayaa. Okay, intaan waa iska goynayaa hore. Inta hore ayaan iska gooyay markaan doortay. Inta hore ayaan doortay kadibna waa iska gooyay. Maxaa ii soo hadhay qaybta dambe kaliya ii soo hadhay. Okay, marka sidaas ayuu igu muuqdaa. Okay, codkii iyo muuqaalka dan doona isla ekaysiisto waxaan dooranayaa codkan hoose ayaan dooranayaa kadibna cursor-ka ayaan keenayaa meesha aan doonayo inaan ka gooyo. Halka markaan joogo waxaan leeyahay calaamadda yar oo aan wato ayaan click siinayaa ama xarafka B baan riixi karaa. Labada isku si uu noqonayo. Warka waa iska gooyay kadibna waxa ii soo baxday in halkaas isku kay saaran yihiin cod iyo muuqaal. Okay, isgalkaas ku haya baabuur baa la dhacay halka ku haya. Okay, waa baraadkana ku soo qaadanayna. Marka haddaan doonayno inaan kan jiidno codka haddaan doonayno inaan dheerayno waxaan kor baan ku daraynaa. dad baa la kufsaday. Okay, marka haddaan doonayno inaan gaabinana hoos baan u dhigaynaa. Okay, codkii waan aaminsanay soo maaha. Okay, marka kanaan doonayno inaan dhex keeno isgalkan hadlaya inaan kan kor keenaa rabnaa oo dhexdiisa uu ka muuqdo. Halkaan kale soo ordayno ka muuqdo ama halka kore sida looga iyo wixii la mid oo kaleeto. Halka banaan baa qabanaynaa. Haddaan balaas haddaan ku dhufanana wuu noo soo degaya laakiin meesha ayaan ka dooranaynaa waan soo jiidaynaa korkiisa ayaan keenaynaa. Muuqaalka korkiisa ayaan keenay. Marka wuxuu noqday wuu isku aadsay. Haddaan doonayno inaan yareyno geesahaasaan ka maamulaynaa saas u soo jiidaynaa. waa yareynaa soo maaha. bas ku sii jiidaynaa ilaa uu noqdo heer uu aad u yaraado
halkaasaan geynay sargaalkaas garabkiisa ku aadan waxaan uma baahanin okay naga dheh. waxaan doonaynaa in marka kalarka ka bedelno, kalarka kashay inaan ka bedelno backgroundka sida loo bedeli jiray sidee ahayd dhexdiisaan ku dhufanaynaa, kadibna right click baan leenahay. markaan right click dhahno waxaa noo soo baxaya qoraal aad u fara badan baa noo soo baxaya. listigan waxaan ka dooranaynaa green screen, markaan ku dhufanay halkaa ayaana lakugu soo qoray. qalinkaas yar baan qaadanaynaa, kadibna qofkii waan dul tegaynaa oo ku dhufanaynaa. wuxuu noqday si nadiif ah, tana okay baan iska leenahay. wuxuu noqonayaa marka wuu dhex ordayaa, wuxuu ordahayaa halkii ayuu ordahayaa. waxoogaa jam baa ku dhegan. waxaan rabnaa meesha kashaysa caddaatay. sababta maxay u caddaatay? qaybtan weeyaan, halkaa wey isagoo dhan boor buu noqonaya, uu ku darmanaya, derbi ku darmanaya. marka dhexdhexaad ka dhig, meel dhex ka dhig si uu u muuqdo. waxay noqotay waayahay weli gadaal sii badi. caddaanka markuu soo gelayo wax yar soo celi. ciiraas dhamaatay ayaa rabnaa. marka ciiradu waa ka dhamaatay, weliba kas yar. kuwaana marka ku maamulaynaa, kuwaan kanaa dib u celinaynaa. hadaan doonaynaa si fiican u muujino. marka maxaa leenahay kana xagga usoo dhig, kana xoogaa shadiis wuxuu ka dhigayaa boor, soo celi. kana waxaa la gaaro sii yaree soo nadiif u noqdo. wuxuu noqday qofka marka wuxuu noqday qof nadiif uu noqdo, si fiican u muuqanaya, ordahayo. okay, waxaa noo hadhay qoraalka sida looga samayn lahaa, sida xawaaraha loo dheeraysiin lahaa qofka oo dhag 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 socodkiisa looga dhigi lahaa, loo boobsiin lahaa. backgroundka waa ka bedelnay, cod iyo video waa samaynay, videogii backgroundka waa ka bedelnay. qaybta dambe ayaan ku dhamaystiri doonaa casharka soo socda hadduu eebaha awoodda la ogolaa projectigaani, maadaama waqtigu uusan noo saamaxaynin oo aadna u dheeraan karo. qaybta labaad ee projectiga intaas ku imaan doona. kulan dambe oo xiiso leh. cabdinaasir axmed jaamac ayaan la socodsiinayay. lessonkan iyo lessonka xiga insha allah ku xirnow Ikhlas Academy and Technology.